kulan ballaaran oo isugu yimaadeen maamulka degmada Salaxley oo ka tirsan gobolka Maroodijeex ee Somaliland iyo degmooyinka Awaare iyo Daroor oo hoostaga gobolka Jarar ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa shalay ka dhacay deegaanka Inaguuxa oo ah magaalada Umaroxadka Somaliland iyo Itoobiya waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa hoggaanka dhaqanka ee deegaankaasi oo hormuud u ahaa Suldaanka Guud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir aqoonyahan siyaasiyiin waxgarad ganacsato madaxda ururada horumarka deegaanka gudida dhismaha wadada cad iyo hal door kale kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo sii wadi lahaa wadada isku xiri doonta magaalada Inaguuxa ilaa degmada Awaare maadaama dhismaha wadadii isku xiriisay Hargeysa ilaa Inaguuxa ay gabagaba ku dhowdahay waxaana halkaasi ka hadlay maayirka degmada Salaxley Shiinatar gudoomiyaha degmada Daroor Axmed Cali iyo gudoomiyaha degmada Awaare Maxamed Mahad waxaanay faahfaahiyeen go'aamada labada dhinac ay isku afkarteen ay ka soo baxay kulankan ay isugu yimaadeen degmooyinka Salaxley Daroor iyo Awaare waxa runtii waxa uu sidii looga tashan lahaa wadadan in wax laga qabto markaa halkan waxa la isla qaatay saddex qodob oo kala ah guddi farsamo ay magacaabaan qolada Daroor iyo Awaare maxaan ku raadayay guddiga dhismaha wadada cad ay insha Allah laakiin dib isku noqdaan iyaguna waxay kaalmo ka geysanayaan soo diyaariyaan in dadweynaha reer Somaliland وسلاس طال محمد شيء وضر هير معه بدون هير سمع الله بندق عندي contribution كسر قريب جلس هنا صوت يارسه waxaan ilaahay ka rajeynaa waqti dhow gudaheeda inaan isku keeno ganacsatada iyo mas'uuliyiinta ka turjumaya gobolada kale iyaguna u socda wadadan sidii uga qayb qaadan lahaayeen ay wax walba barbilow bay leeyihiin maanta horumarka halka laga dhaqaajinaya waxa uu faa'iido u yahay gobolada uu sii marayo oo dhan iyo degmada iyo deegaanada uu sii marayo dhan faa'iido iyo horumar yahay marka waa arrin aan aad ugu faraxsanahay fikir ahaan inteena hadii aan isla aaminsanahay inaan wax wada qabsano oo maanta inagoo shacab ahaan iyo inagoo dawlad ahaanba inaan wax wada qabsano oo horumar aan ka hadalno oo wada ka hadalno waa wax ilaahayna gaarsiiyo sharaf inoo ah horta taas marka hore waxa iyaguna halkaasi ka hadlay boqor Raabi Yuusuf Cabdillaahi oday aadan Saryan boqor Axmed Iimaan murashax Siciid Cudey iyo Mawlid Cumar Jees oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee gobolka Jarar waxaana hadaladoodii kamid ahaa intii dhulkaasi burburku ku dhacay waxay kamid tahay degmooyinka burburay ayay kamid tahay waxaanu rajaynaynaa inay ku soo noqoto sideedii hore oo aanu ku soo dhaweynano cid kasta oo ka qayb qaadanaysa magaaleynta la magaaleynayo Inaguuxa waxaanu wada garanaynaa inay barkada Jarar iyo Somalilandba inay barkada gacankeedii taa wadada cad barkadu hadii la qodoon la gacan loo saban meedeysanta wadadan iyo imika hamigiinan iyo arintan ad wadaan waa arin midhadhalkeeda dad badan ay ka faa'iideysan doonaan oo ay doonaan maanta wadadu waxay sameeysaa waa caalamkan aanu arkino meel aan wada lahayn hanti lama gashan karo baaxmuus lagama heli karo moogtahay ganacsato ma iman karto marka wadadan cad waxay leedahay isku xid bulsho isku xid dhaqaalo iyo isku xil dhaqan taasoo ujeedadu ay tahay sidii wadada looga amba qaadi lahaa Inaguuxa ilaa iyo Awaare taasi oo aan baaq u dirayo federaalka iyo dawladda kililkaba sidii ay wadada uga qayb qaadan lahaayeen si ay u fududaato ganacsiga u dhaxeeya labada dawladood Axmed Koore oo ah la taliyaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Cagshar ayaa sheegay in sanadaha soo socda wadadani ka mid noqon doonto wadooyinka laamiga ah ee dawladda federaalka ee Itoobiya dhisi doonto arinta koobaad waxa weyn horta runtii waxaan ku bishaareynaya wadadan runtii inta halkan joogta iyo inta ka aga dhow qura maahe ummad badan ba ahmiyad kale dhamaan gobolada deegaanka markaad eegto maxaan ku leeyahay gobolada ay tagi doonto dhan ahmiyad buu hayaan runtiina waa mid laga warhayo loo soo jeedo aan rajaynayna si dhaqsaayna mataqaana wax tarkeeda uga qayb qaataan turbana ay muujiyaan maxaan ku leeyahay gacan ka geysanayaan taa horta mid in sheegay mustaqbalka dhowna insha Allah waxaan ogahay in laami noqon doonto wadooyinka sanadahan ugu soo horeeya
laamiga dowladda federaalka Itoobiya ka dhigi doonta lagu daray ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo gunaanaday suldaanka guud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir waxaanu sheegay in wadadani tahay wada la wada leeyahay isagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha wadada ina guuxa ilaa Awaare wadada raadiyahay inay noqoto maaha wada qaran oo ummadda ka dhaxaysa weeye wadada ina guuxa iyo isku xiriirinaysa Awaare iyo ilaa Soomaaliland iyo dowladda deegaanka ayaan anagu maanta meesha u nimi wada qaran oo dhaba weeye ninkii yiraahdo wada reer marasa taasi wax faa'iido ma soo wado ummaduna wadooyinka ganacsigooda ayay hirgelisay ganacsatada waxaan leeyahay inay ka qayb qaataan qaabka loo sameeyo war loo dhisayo wadada dadweynaha xoolo dhaqatada waxaan leeyahay xoolihiina ku tabaruca sidii wadadaas u ballaaran lahayd dowladda deegaanku waa dowlad ummad Soomaaliyeed waa dowlad shaqooyin badan u hayso ummadda Soomaaliyeed annagu waxaan ku kalsoonahay dowladda deegaanka in la shaqeeyo wax farbadan la qabto kulankan oo martiqaadkiisa lahaa maamulka degmada Salaxley ayaa daba socday kulamo hore u dhaxmaray madaxda degmooyinka Salaxley Daroor iyo Awaare kuwaas oo lagaga hadlayay sidii loo sii wadi lahaa dhismaha wadada isku xidhi doonta ina guuxa iyo degmada Awaare ee gobolka Jarar Maxamed Midaq Warsame Ariel TV Hargeysa